Now to this, more than a month after the body of a 16-year-old was found in Placer County, a reservoir there, the coroner's office has released Kylie Rodney's cause of death. Yeah, Nevada County deputies say Rodney drowned in her vehicle in Prosser Reservoir back in August. The coroner's August 6th, prompting weeks of searching after she had been last seen at a large party with hundreds of other teens at the Prosser family campground. Agosto 5, 2022, Kylie Rodney waxay ahayd 16 jir qaangaar ah oo soo jiidasho cajiib leh ayaa gurigeeda ka soo baxday taasoo ka qayb galaysa xafladda xirada qoyska ee Prosser Family. Ugu dambeynna way soo gaartay goobtii. Si fiican ayay ula caweysay asxaabtii ay xafladda wada joogeen. Ugu dambeynna hooyadeed ayay ku wargelisay inay soo baxayso fariin ayay u rabtay. Laakiin nasiib darro Kylie iyo gaarigeeda midkoodna ma soo gaarin guriga. Balse maxaa dhacay habeenkaas? Baaritaanka kiiskan ayaa ku ogaan doona hagardaamada iyo arxandarrada gacan ku dhiiglahan ku sugan California. Laakiin inta aan bilaabin muuqaalkeena maanta, haday tahay markii kugu horeysay aad soo booqato channelka, fadlan ku soo biir adigoo saaraya subscribe si muuqaal walba aan soo gelino uusan ku dhaafin. Like iyo share nagu dhiirigeli mahadsanid. Kiiskan ayaa nageyn doona Mareykanka, gaar ahaan California. Waxay caan ku tahay xeeb aad u qurux badan, sidoo kale waa hoyga aflaanta Hollywoodka. Qofna ma filayn inay hoy noqon doonto dilayaal tiro badan, kuwaasoo geysan doono dilal iyo dhimasho daahsoon. Si kastaba ha ahaatee, Kylie waxay ahayd gabar 16 jir dhalinyaro ah kana soo jeeda gobolka California, taasoo ahayd gabar aad u firfircoon, asxaabteedana ay aad u jeclaayeen. Waxay qorsheynaysay inay bilowdo dugsiga caafimaadka kadib markay dhammaysatay waxbarashada dugsiga sare. Dhowr bilood kadib waxay noqon lahayd 17 jir ka hor dilkeeda. Sidoo kale habeenkaas waxay aaday xerada qoyska ee Prosser Family oo goobta madadaalada iyo caweyska taasoo ku taala dhulka kaydka ee dawladda. Xaruntan masaafo ahaan 10 daqiiqo oo baabuur waxay u jirtaa halka ay deganeed gabadhan yar. Balse yaa islaha xeradan iyo gurigan inta u dhaxaysa ayaa lagu waayay doonaa Kylie. Agosto 5, 2022, baara 6 maqribnimo, Kylie ayaa si cajiib ah isu diyaarisay si ay u aado xafladeeda. Kadib waxay soo qaadatay gaari Hyundai 2013 taasoo timid goobtii xafladda. Kylie aad moodo inay xoogaa cabtay cabitaan, waqti badanna ku raaxaysatay xafladda. Waxay fariin u dirtay hooyadeed iyadoo ku wargelinayso inay ku soo baxayso 45 daqiiqo gudahood. Laakiin nasiib darro, waqti badan ayaa ka soo wareegatay, gurigana ma imaan. Hooyadeed sariir ayay iskaga seexatay, weliba iyadoo rajaynayso inay imaanayso, balse ilaa iyo subaxii laga gaaro kamaysan caajisin inay wacayso telefoonkeeda. Sidoo kale waxay wacday saaxiibadeed si ay u weydiiso gabadheeda, balse jawaab maysan helin. Ugu dambeyn waxay wargelisay booliiska, kuwaasoo baaritaano badan sameeyay, balse FBI ayaa la wareegtay kiiska Kylie, kuwaasoo baaritaan dhammaystiran ku bilaabay iyagoo gacan ka helaya xafiiska booliiska degmada iyo ilaalada wadooyinka traafikada ee California. Sidoo kale ciidamo ka tirsan laamaha sharciga gobolka oo ay weheliyaan boqolaal baarayaal ah iyo unuga ciidamada gaarka ah ee K9. Waalidiinta ayaa booliiska u sheegay in Kylie ay qaadatay gaari Hyundai ah iyo xoogaa lacag ah. Si kastaba ha ahaatee, booliiska waxay sheegeen in xitaa gaariga aysan helin oo isagana la yahay. Booliiska ayaa lagu wargeliyay in Kylie markii u dambeysay fariin ay u soo dirtay hooyadeed habeenkaas. FBI ayaa bilowday inay raacaan goobta uu yaallo Kylie telefoonkeeda, iyadoo tafaasiisha laga helay ay muujinayso halkii ugu dambeysay telefoonka Kylie ay fariinta ka soo dirtay. Waxaana lagu arkay harada xeebta u dhow oo ahayd xerada ay xafladdu u joogtay. Saraakiisha xafiiska degmada ayaa shaaca ka qaaday in goobtii ugu dambeysay ee la og yahay ay tahay meel u dhow xarunta macmalka ee dawladda, waana agagaarka xerada qoyska ee Prosser Family. Captain Sam Brown ayaa sheegay in telefoonkeeda mar ay heleen, weliba uu dhacay muddo ugu dambeynna la damiyay, waana isla halkii ay saraakiisha booliiska ka sheegeen in telefoonkeeda uu yaalay markii fariin qoraalleedka hooyadeed looga soo diray. Sida ay sheegeen saraakiisha iyo FBI-da, ku dhawaad 200 ilaa 300 dhalinyaro ah ayaa ka soo qayb galay xafladda, kuwaasoo ku caweynayay xerada qoyska ee Prosser Family. Saraakiisha qaar ayaa aaminsan in dhalinyaradan ay isugu jiraan kuwa qaangaar iyo kuwa qaangaar aan ahayn, kuwaasoo loo baahan yahay in la soo wada xiro dhammaantood. Laakiin taa beddelkeeda, xeraalinta ayaa ku boorisay in FBI-da iyo booliiska ay la yimaadaan macluumaad kasta oo gacan ka geysan kara helitaanka Kylie oo dhalinyarada aysan soo xirin caddayn la'aan. Hase ahaatee, booliiska maysan soo saarin digniin, balse ilaalada wadooyinka California ayaa lala wadaagay in lala yahay gabadhaas, weliba aan la xaqiijin in la afduubtay ama la dilay. 10 Agoosto waxaa jiray baaritaan qoto dheer oo ay sameeyeen in ka badan 220 sargaal oo ka kala socday xafiiska booliiska degmada, waaxda booliiska gobolka, ilaalada wadooyinka traafikada iyo hay'adaha sirdoonka ee Mareykanka ee FBI-da.
sidoo kale helikobtarada ciidanka ayaa baaritaanka ka qayb qaadanayay. taliyaha ciidanka gobolka Nevada ayaa sheegay in baaritaanka ay ka qayb qaadanayeen in ka badan 100 mutadawiciin ah oo ka tirsan bulshada gobolka, kuwaasoo markaliya rabay in la helo gabadhan. dhammaan saraakiishii booliiska iyo kooxihii mutadawiciinta ayaa ku hungoobay helitaanka Kelly ama wax macluumaad oo u dhoweyn kara helitaankeeda. dhanka kale Captain Sam Brown ayaa bulshada ka codsaday in cid kasta oo xog ka hesha inay soo baxdo oo booliiska ay la wadaagto. sidoo kale booliiska waxay caawinaad ka heleen dadka caanka ka ah baraha bulshada, kuwaasoo iyagana si mutadawacnimo leh uga baahinayay barahooda gaarka ah. sidoo kale qoyska ayaa baahiyay in ciddii macluumaad dhab ah ka keenta inay siin doonaan lacag gaaraysa $50,000, halka booliiska $20,000 ku dareen lacagtaas oo noqonaysa $75,000 in la siin doono ciddii keenta macluumaad u sahlaysa helitaanka Kelly. si kastaba ha ahaatee, saraakiisha fulinta sharciga ayaa tilmaamay inay la soo xiriireen urur mutadawiciin ah oo loo yaqaano Avengers, kuwaasoo shaaca ka qaaday inay aadi doonaan California si ay ugu biiraan raadinta Kelly. kooxdan waa urur gaar ah kuwaasoo diiradda saara kiisaska maqan ama la dilay. waxay isticmaalaan qalab u gaar ah iyagoo baaritaan ku sameynaya meydadka iyo dadka la laayahay. kooxdii mutadawiciinteeda ayaa soo gaartay goobtii iyagoo baaritaankooda ka bilaabay biyaha kaydka ee Prosper Family. sidoo kale isla kooxdan ayaa ku baahisay barahooda bulshada si ay wax uga ogaadaan kiiska. maalinkaasba waxaa soo kordhay war naxdin leh. wax yar kadib 3:30 daqiiqo oo galabnimo isla maalinkaas, xafiiska gobolka Nevada ayaa bayaan uu soo saaray wuxuu ku sheegay inay soo korortay xog cusub oo naxdin leh, taasoo ay soo gudbin doonaan iyadoo dhammaystiran markii ay tagaan goobta. subaxnimadii saraakiisha booliiska iyo kooxdii gaarka ahayd ayaa si rasmi u helay haraadigii Kelly, inkastoo aan la aqoonsan karin meydka. kooxaha baaritaanka ayaa sheegay in loo diray shaybaarka si loo xaqiijiyo in meydka uu yahay Kelly. waxayna sheegeen in baaritaanka shaybaarka uu qaadan doono ku dhowaad 6 ilaa 8 isbuuc, waayo waxaa waajib ah in la xaqiijiyo in meydka uu yahay gabadhii la raadinayay ee Kelly iyo sababta ay u dhimatay in la ogaado. kadib baaritaankii lagu sameynayay meydka Kelly markii uu dhammaaday galiikii dambe ee maalinkaas, taliyaha ciidanka Nevada ayaa ku dhawaaqay warka ah in meydka uu yahay Kelly Rodney. sidoo kale qoyska Kelly Rodney ayaa iyagana warbaahinta la hadlay isla galabkaas, iyagoo xaqiijiyay in gabadhooda Kelly ay dhimatay. dhammaan bulshada gobolka ayaa soo buux dhaafiyay halka ay deganaayeen qoyska, iyagoo u tacsiyeynaya murugada soo gaartayna la qaybsanaya. qoyska ayaa sidoo kale aad ugu walaacay dhimashada gabadhooda, iyagoo maalinkaas ugu barardeeqay barxadda gurigooda. Jagger Westphal oo ahaa Kelly saaxiibkeeda ayaa sheegay in saaxiibtiisu warqad u soo diray ka hor inta aysan xafladda bilaabin, kaasoo sheegay inuu uga digay inaysan wax khaldan samayn inta ay xafladda joogto, balse waqti dambe ayay uga soo jawaabtay waqtigaas ayaana ugu wardamaysay. booliiska ayaa sidoo kale sheegay in Kelly dilkeeda qofka ka dambeeyay uu xafladda ku sugnaa. si kastaba ha ahaatee, Sammy Smith oo ahayd saaxiibada Kelly ayaa iyana waxay sheegtay in Kelly fiidkaas oo dhan waqti wada qaateen ilaa iyo 6:20 daqiiqo. sidoo kale Smith ayaa sheegtay in habeenkaas wada kulmeen dad badan oo cusub. haddana waxay xustay in Kelly Rodney u muuqatay mid sarqaansan oo aan baawur wadi karin. waxaan u haystay inay rabto inay sii joogto, anna waqtigaas ayaan xerada ka soo baxay, ayay tiri Smith. saraakiisha booliiska ayaa sheegay cid kasta oo waraysi bixisay ay sheegtay in habeenkaas Kelly ay aad u sarqaansaneed. sidoo kale waxay sheegeen in qof walba markuu baxayay ay iyada joogtay. baaritaan dheer kadib, booliiska iyo saraakiisha kale ee ka qayb qaadanayay baaritaanka waxa uu soo baxday dhowr arrimood. in Kelly qof aan la garanayn uu dhibaato u geystay, kadibna biyaha dooxada uu ku tuuray si uu u qariyo cadeymo kasta oo lagu soo tixraaci karo. sidoo kale inay khamri badan cabtay, ayna dhaaftay xadkii uu qofka bini'aadamka isku kontarooli lahaa, kadibna ay dhibaato isku geysatay ama isdishay. iyo sidoo kale inay baxday iyadoo sarqaansan, biyaha dooxadana gashay iyadoo wax kala ogeyn, kadibna ku geeriyootay. intaasba waa aragtiyo ka soo baxay saraakiisha booliiska iyo FBI-da. kiiskan baaritaankiisa ayaana weli sii socdo, aynu aragna halka uu ku dhammaado iyo cidda dhibaatada u geysatay Kelly Rodney. daawada adigana sidee u aragtaa kiiskan? ma la dilay mise iyada ayaa isdishay maadaama CC kaamirada aaggaas aysan shaqaynayn? mis leedahay kiiskan markii la soo gabagabeeyo dilaaga waa la heli doonaa? nagula wadaag qaybta hoose, waad ku mahadsan tahay. How did we not find it when we were searching? The lake was extensively searched with side sonar, with an ROV. We had divers, we had swimmers. I think that's part of what we're going to have to go back to do and debrief.